Door wanaagsan saaxiibayaal sida u dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan fadlan haddii aad daawashada ku horeysa channel subscribe saaro si aad u noqoto markasta daawada ugu horeeya intaa kadib maanta waxaa jira kulamada saaxiibtinimada oo qaramada marka waxaan rabnaa inaan 6 kooxood oo kaliya aan kasoo xulanay inkastoo intaan ka badan jira laakiin 6 kooxood ugu macquulsan ka soo qaadanayna sida u jeedin events waa 6 kooxood halka audiskuna uu yahay 7 door ku dhawaad fadlan haddii ku soo gaarto shaxda daawo si aad u fahamto waxaan ugu horeeya shaxda Rwanda iyo Sudan oo kulan saaxiibtinimo ciyaaraya du'aaliya 10 saac ee geeska Afrika maanta marka Rwanda iyo Sudan inkastoo Rwanda iyo Sudan marka la fiirsho qaramada ay Rwanda xoogaa yara adag tahay marka wax walbaana suurtagal ah waxaan lama fiirsho audiska lama fiirsho kooxahan waa iska nasiib marka Rwanda waxaa noo saaran barrage ama badis inay badiso ama inay barrage gasho labadaas waxaa ku soo xiga Morocco iyo Georgia oo sida u jeedin national team ka maanta qayb ka ah ee kulamada saaxiibtinimada marka Morocco iyo Georgia Morocco awood badan oo Afrika ayada awood badan marka Morocco waxaan leenahay way badinaysaa marka dad aaminsantahay inaysan badi karin marka waxa dhihi kartaa barrage ama badis oo 12 senti ayaa saaran marka waxa ku soo xiga oo kale shaxdayna qayb ka ah maanta Portugal iyo Nigeria marka maqasho waxa kugu soo dhaca kooxaha Afrika qaramada kuwa ugu adag laakiin Portugal markii loo baawac dhigo Portugal ka awood badan markastana Afrikaanka iyo Afrikada iyo ciyaaryahanada Europe markasta kuwa Euro awood badan oo because qarash iyo qiimo iyo waxa ku baxo iyo waxyaabo far badan ku baxo marka Nigeria koox adag waa lama diidan laakiin Afrika ay u adag tahay laakiin markii qurbaha la joogo xoogaa marka adeegeeda wax weyn ma taro marka Portugal ayaa guud ahaan ciyaartan aan u soo xirnay inay badi karto sidoo kaleeto waxaa qayb ka ah Romania iyo Slovakia labadan audiska fiirin laakiin Romania dabcan waa koox adag team adag aan dhahay waaye marka isku mid marka waxaan leenahay Romania waa barrage ama badis inay badi karto ama ay barrage gali karto tan kale Israel iyo Zambia naftirkeeda Israel adag markay banooni ahaan markii la dhaho Israel adag laakiin kulamada waa iska nasiib waxaan leenahay Israel iyo Zambia waxaa 2 gool oo kaliya ka imaan karta iyo ka badan waxa ugu dambeeya South Africa iyo Mozambique marka South Africa adag South Africa leena marka South Africa badinayso hal gool inay ku badin doonto laga yaabo ama 2 gool ama 3 saas laakiin South Africa badinayso marka guud ahaan shaxdayna intaas waaye koodkeedana waa kaasa marka intaan ka badan jir laakiin intaan oo kaliya ayaan ka soo xulnay fadlan shaxda daawo si aad u fahanto aad baa u mahadsantahay saaxiibayaal